qaab fiican oo nidaamsan ayuu tables keeniyay noo soo aan ku sameynay saad u jeedaan kan xogaa siki soo wakaas inta xogeer subixi kan xogaa soo jiid okay wakaas ardaye intaas ayaan ku sameynaa cashirkeenii sida loo sameeyo xaadirinta ardayda ama shaqaalaha waa kaas waa idin salaamaya anigoo ah injineer cabdinaasir maxamed asalaamu calaykum aan soo gelin doono oona aad uga faa'iidaysan doontaan hadduu aadidma insha allah maanta arday dhowr ah ayaa isoo weydiisay ustaadow waxaan ka rabnaa waxaa weeye qaabka aan ku samayn karno table ama xaadirinta ardayda ama hadday ay ahaan lahayd shirkad jaamacad iskuul qaabka loo xaadiriyo ardayda qaabka loo samayn karo tableska insha allah maanta qaybtaas ayaan falaqayn doonaa waxaan rajaynayaa inaad ila socon doontaan waa anigoo ah injineer cabdinaasir maxamed insha allah waa macalinkiini aad jecleedeen waa macalinkii mar walba oo jeclaa in ardayda uu maskaxdooda kor u qaado si ay uga faa'iidaystaan jaanisada faraha badan ee janaalkani dhex yaala insha allah ardayda waxaan idin leeyahay la socod wanaagsan insha allah cashirkiina ayaan gudaha u gali doonaa marka hore waxaan bedelayaa page layout-ka ayaan tagayaa kadib waxaan meesha ku qorantahay orientationka ayaan click siinayaa markaan siiyo landscape meesha ku qorantahay ayaan ku dhufanayaa markaan ku dhufto ardaye waxaan dib u laabanayaa marka insert ayaan tagayaa kadib meesha tables ay ku qorantahay ayaan ku dhufanayaa marka laba column kaliya ayaan furanayaa soo marka columnka koowaad waxaan ku qoranayaa number midka xigana name soo marka meeshan ayaan click siinayaa layout-ka ayaan tagayaa marka waa soo gaabinayaa meesha number kaliya laga rabo iska soo gaabinaynaa soo waxaa ku soo haray name-ka assignature-kiisa waa xoogaa waa soo gaabinaynaa markaan soo gaabino okay waa soo gaabinaynaa kadib waxaa imaanayaa layout-ka qaybta meesha ku qorantahay insert right-ka ayaan ku dhufanayaa oo iisoo saarayaa mid kale asigana sidoo kale waa soo yareynayaa ilaa iyo waxaan ka dhigayaa 0.4 kadib waa badsanayaa marka insert right-ka ayaan tagayaa ilaa waxaan ka dhigaa kaliya waxaan sameynaa waxaa weeye 2 usbuuc ayaan sameynaynaa xaadirinta ardayda ama shaqaalaha okay okay marka intaas aan ka dhigno halkan ayaan imaanayaa waxaan badsanayaa table-ka ayaan badsanayaa insert below ayaan tagayaa marka ilaa xoogaa waa iska badinayaa halaas markaan sameeyo waxaa imaanayaa meeshaani iyada naftarkeeda xoogaa okay highlight ayaan saaranayaa highlight markaan saarto arday waxaan tagayaa home tab-kii ayaan dib ugu laabanayaa meesha numberska ayaan ku dhufanayaa oo qaybtan ayaan ka furayaa kadib numberska ayaan dooranayaa so waxaa ii soo baxday saad u jeedaan 1 ilaa 32 qofood inaan table-kan ku buuxiyo so marka maadaama aan ka gaari karin in 32 qof aan qorno magacyadoodii laakiin waa soo gaabsanaynaa oo waxaan qori doonaa magac ka mid ah magacii aan u baahannahay duwalidmo sida Muhammad Ali Muhammad so layout-kan dib ugu laabanaynaa waxoogaa waa soo gaabinaynaa so marka qaybtana ayaan tagayaa marka waa maalmaha sida Saturday ayaan qoranayaa intana Sunday ayaan qoranayaa intana waxaan qoranayaa Monday ayaan qoranayaa Tuesday Wednesday Thursday Friday hadana isbuuca labaad afwan Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday and Thursday Friday so marka intaan sameyno waa 2 usbuuc ayaan sameynay kaliya kadib
maadaama aan si hore aan markii hore aan sheegay aan ka gaari karin in 32 qof aan qorno soo marka magaca koowaad ayaan highlight saaranaynaa kadib copy ayaan leenahay kadib lambarka labaad ilaa iyo 32 qof ayaan highlight saarina markaan saarno ardayay dhaxda ayaan tagay right click ku siinaya kadib waxaan leeyahay past sidaad u jeedaan magacyadii waa ay noo soo baxeen kadib waxaan rabnaa marka inaan xaadirno marka ardayga sabtida joogay axad joogay isniin joogay inaan ogaano xaadiriska marka waxaan tagayaa insertiga ayaan ku laabanayaa waxay maanaya meesha ku qoran tahay symbol ayaan furayaa calaamada saxda ah ardaygan wuu joogay isniin sidoo kale wuu joogaa isniin wuu joogaa talaado for example qaayb ayaan siinaynaa arbaco waa uu maqnaa oo kale kali waa sample weeye khamiis oo kale waa uu joogay maadaama maalinta arbacada oo kale ee fasax ay tahay shirkadaha intooda badan iskuulada intooda badan marka qaybtaas highlight ayaan saaranaynaa oo calaamad gooni ah ayaan u samaysanaynaa sidoo kale friday kale naftigeeda isbuuca labaad naftirkiisa maalinta jimcaha ah idan waa highlight ayaan saaranaynaa marka ardayaysan u jeeday sabti ilaa iyo khamiis qofka qaa'ibkiisa ama shirkadda markaas qofka markaas ka maqan maalinta for example hebelo wuxuu maqan yahay arbaco ama talaado ayuu maqan yahay waa qaabka ugu fudud tableska loogu sameeya shaqaalaha xaadir loo xaadiriyo marka maadaama aan intaan aan ka gaari karin for example waxaan sameynaynaa marka intaan ayaan highlight saaranaynaa kadib waxaan leenahay copy haddana intaan lambar law ilaa waxaan highlight saaranaynaa marka qofka ugu dambeeyo waxaan dhigaynaa right click past saad u jeedaan si fudud ayaan ku sameynay maadaama aan ka gaari karin oo videona aad u dheeraan kara marka sida videoga u soo gaabto ardaygana u fahmo ayaan copy u isticmaalnay intan sidoo kale waxaan sameynaa sabti ilaa iyo waxaan sameynaynaa hadduu alidmo khamiis highlight ayaan saaranaynaa kadib waxaan leenahay past ayaan leenahay marka basel taas waxaa inu jeeda inaan sameynay tableskii xaadirinta marka ardayga magaciisa iyo maalinta uu maqan yahay marka intaas markaan sameyno waxaan dib ugu laabaynaa marka waxaan rabaa marka in meeshaani aan ku qoro magaca iskuulka iyo shid attendancyga marka waxaan ku laabanayaa meesha page layoutka ama layoutka ayaan ku dhufanayaa afwan waxaan tagayaa design waxaan tagi doonaa design ayaan tagi doonaa kadib meesha qordiro tableska ayaan ku dhufanayaa kadib hadduu alidmo waa jiidayaa waxaan la simayaa ilaa tableska agtiisa ayaan la simayaa markay saas ay tahay waa kana meesha waxaan ku qorayaa for example hadda aniga hadda waa magaca iskuul ayaan ku qorayaa for example iskuulka alxayaat الحياة of information الحياة of information ayaa leenahay information technology okay inta leenahay qaybta waxaan ku qorayaa marka attendance sheet marka intaan highlight markaan saarano farta ayaan xoogaa weynaysanaynaa ardayay farta markaan weynaysano dhaxdaan keenaynaa kadib halkaan aan furaynaa application ayaan ka dhigaynaa marka saad u jeedaan waxaa weeye waxaan sameynay attendance sheetka ayaan sameynay marka saas inuu yahay waxaan rabaa marka loogadii iskuulka hadda iskuul ayaan ka dhignay laakiin adiga markaas meeshii markaas adiga aad joogtid ama jaamacad ama shirkad waa qaabka kaliya aan ku fahansiinaa weeye marka meeshan waxaan rabaa in loogada iskuulka ama loogada shirkadda qaabka u saaran lahayd marka saas ay tahay waxaa imaanaysaa insertiga kadib waxaa ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay picture and then desktopka ayaa ku dhufanaysaa haddii loogadaada desktopka ku saaran tahay desktopka aad kasoo qaadanaysaa insert ayaan leedahay marka intaas aan sameeyo double click ayaan siinayaa waxaa isu meeshaan ku qoran tahay text wrapping ayaan ku dhufanayaa marka kadib waa soo qaadan kartaa loogadaadii waa yareysan kartaa qaabka ugu fudud waa kaas intan waa kaas waxaan sameynaysaa waxaan ku sameyn waxaa weeye
waxaan sameynay allahu mustacaan ii sheeg qaabka ugu fudud aan ku samayn karno qaabka ardada loo xaadirinta qaabka xaadirinta weeye intaas ayaan cashirkeena ku sami karnaa maadaama ardayga wixii su-aalo ahna waa diyaar weeye qaybta commentiga ayaan ardayda rajeynayaa in wixii su-aalaha ay qabaan commentigaas ay kasoo bixiyaan insha allah waxaan rajeynayaa in dad fara badan ama arday fara badan in ay ka faa'iidaysteen qaabkaani khaylaad ayaa saaranaysaa kadib farta for example waxaan ka dhigayaa 12 14 ka dhigo already waa farta laakiin 12 aan ka dhigayaa marka saad u jeedaan qaab fiican oo nidaamsan ayuu tableskeeni noo soo aan ku sameynay saad u jeedaan kan xoogaa siki so wakaas inta xoogaa subixi kan xoogaa sujiid okay wakaas ardaye intaas ayaan ku sameynaa cashirkeenii sida loo sameeyo xaadirinta ardayda ama shaqaalaha wakaas waa idin salaamaya anigoo ah injineer cabdinaasir maxamed السلام عليكم.